calanka surahuna hadda kor baan u kaca calankii barakaysnaa Somaliland Republic calankii rasmiga ahaa oo aan annagoo jabhada u soo dhibannay maanta ay dawlad yihiin waxay xaq noogu leeyihiin inaan garab istaagno anigu ugaas baanahay raalli ahaada xildhibaanada ilaahay wa tanaa'u lillahi thumma as-salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim marka hore gudoomiyaha jaaliyadda dalka Kenya ee beesha beelweynta Surre Ahmed Maxamed Maxamuud Ciise gudoomiyaha ku-xigeenka macquul xildhibaanada sharafta badan gobolka North Eastern baarlamaankiisa kala duwan ku jira iyo community-ga Islii Cabdirasaaq nagala joogay dadweynaha dhalinyarada wiilasha gabdhaha bahda saxaafadda odayga suldaanka Suldaan Umar Goodir waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka xiga aad baan ugu faraxsanahay xafladan inaan ka soo qayb galo aniga oo soo dhaweynaya gudoonka iyo guddiga iyo golaha jaaliyadda beelweynta Surre ee dalka Kenya anigoo martiya inaan la soo kulmo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa mahadsantiin waan soo dhaweynaya waan bogaadinaya marka xiga anigu xafladii dhalinyarada ee calanka ee magaalada Muqdisho waa ka soo qayb galay wax odaya anaa ka soo qayb galay nasiib waxaan u yeeshaa mar walba dhalinyarada inaan kala soo qayb galo marka cimrigaygu waxaan u malaynayaa cimrigii barsaqa in la igu soo dhalinyarayn doono si ay idin la sii jooga ayaan wax la igu dari doono haddii alla idmo maxaa yeelay dhalinyarada ay jecel waxaan leeyahay Surrow soo dhawow waxaa la idinka rabaa dadka madaxda aad ka dhigateen iyaga cadaalad baa laga rabaa in Surre u sinaado luquntii labada garab u dhaxaysay ee Surre inay noqdaan idinka Surraha haweenka dhalinyarada ganacsatada odayaasha culumaa diinka ikhtiyaarta dhammaan waxaa laga rabaa inay garab istaagaan dhinaca dhaqaalaha laga taageero ina lacag fii'a bil walba bixisaan dhalinyarada odayaasha kulli lacag fii'a in la isku qoro sawaaxiliga wuxuu yiraahdaa anigu sawaaxiliga waxbaan ka garanayaa nimankan reer North Eastern ayagoon dhalan baa Nairobi joogi jiray Makone MT Highland gacan maran lama leefo marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada hoggaanka Soomaaliyeed baa tihiin Soomaali ha noolaato Soomaali ha israacdo Soomaali ha cizowdo ha sharafowdo meel kasto ay joogto Soomaali ilaahay kor ha ka dhigo walaala Allah ka dhigo bogooda burcad Allah isu mari midda xigta anigu tookadii ka horeysay calanka surahuna hadda kor baan u kaca calankii barakaysnaa Somaliland Republic calankii rasmiga ahaa oo aan annagoo jabhada u soo dhibannay maanta ay dawlad yihiin waxay xaq noogu leeyihiin inaan garab istaagno anigu ugaas baanahay raalli ahaada xildhibaanada reer North Eastern dhaqanku kama gagabado mana ka xishoodo qadiyada markaa taagan waa u sheegaa waliba qoladiina reer Gaarisa idinkoo u hilinaya qabiil yaan idinka daawanay saxaafadda annaga dhaamusiya maaj dhiigu biya maaha annaga la tukeeyo dhiig baa leenahay waxaan idin sheegayaa waxaan ka gaban weynay siyaad barre oo taangiyaal iyo diyaarada haysta ayaan waxaan ahayn SNMT koonfureed maanta oo ay Somaliland Republic tahay Surre ka gaban mahayo inuu calanka difaaco ma difaacaysaan calankaas war ma difaacaysaan halla diyaar mawtihiin cid walba ma ka difaacaysaan noolaada jira oo jooga waxaan Somaliland u sheegaynaa kaligiin inaanaan ahayn dadka reer koonfureedka annaga idinkaga filan Surre waa ku filan yahay xaafadaha reer koonfureedka inay idinka difaacaan idinkuna waxaa la idinka rabaa walaalihiina Somaliland idin la leh oo reer Somaliland inaad si nabada iyo walaaltinimo iyo baarinimo iyo dulqaad iyo cisi inaad ku dhaqdaan kulana noolaataan
annaguna waxaan afka ka garaacayna waxaan diyaar u nahay reer koonfureedkayaga inaan la dhicadhicaysano reer koonfureed waxaa ballan ilaahay calankaa waa ka difaacayna wax walba hadday dawlad koonfureed tahay hadday qabiil koonfureed tahay reer koonfureedoo waana taqaanaan faa'iido keliya dagaalkaan ku leenna calankaa waa difaacaynaa waa u dhimanaynaa keligiis maaha yeeli mayno aqbali mayno hiilo yeeli mayno calankaa sidaa aanu kor ugu qaadnay ayaanu u difaacaynaa surro waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoonka guud ee beelaha Surre oo maanta ka qayb galay munaasabad ay lahayd beelaha direed gaar ahaan beesha Surre oo ka dhacday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa halkaasi waxa uu ka hadlay xaaladda haatan ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa uu sheegay inaan beeshiisu aanay marnaba faraha ka laaban doonin xiisadaasi isla markaasna si dhow loo socoto qulqulatooyinka halkaasi ka jira taabadalkeeda waxa uu sheegay in beeshani ay dhismo weyn ku lahayd yagleelidii SNM xilliyadii kacaankii markii SNM iyo waliba sidoo kale dawladii Maxamed Siyaad Barre ay ku dagaalamayeen goboladii waqooyi ee Soomaaliya suldaankan ayaa waxa uu sheegay in maanta ay Somaliland qaran tahay marnaba laga filayn in beeshani ay banayso garabka Somaliland taabadalkeeda waxa uu sheegay in beeshiisu hiiliyo hoob ay la garab taagan tahay walaalahooda Somaliland dhistay suldaanka ayaa sidoo kale dadka deegaan ahaan degan magaalada Laascaanood waxa ugu baaqay inay muujiyaan markasta walaaltinimo iyo midnimo maadaama dadkaasi inta badan ay yihiin dad reer waqooyi taabadalkeedana ay ilaaliyaan midnimada reer waqooyiga waxa kale oo fariin u diray beelo kale Soomaaliyeed oo uu sheegay inay duulimaad ku yihiin jiritaanka jamhuuriyadda Somaliland oo sidoo hadalka u dhigay kuwaasi ugu baaqay inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirta gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee haatan loo yaqaan Somaliland suldaankan ayaa toddobaadkii hore mar uu ka hadlay magaalada caasimadda Soomaaliya ee Xamar waxa uu tilmaamay in beeshiisu mar waliba ay kaga filan tahay dadka reer waqooyiga beelaha kale ee koonfurta degan ee iyagu faraha baas ku haya xaaladda haatan ka taagan magaalada Laascaanood magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa iyadu waxay wajahaysay 2 toddobaad ama 3 toddobaad ee u dambeeyay xaalad qulqulato siyaasadeed iyo waliba sidoo kale shaqooyin isbarkan oo halkaasi ka dhacay waxa halkaasi ka dhacay mudaharaad kala duwan oo dadka deegaanku ay kaga soo horjeedaan ciidamada Somaliland joogitaankooda kuwaasi oo ay ku sababayeen inay Somaliland mar waliba dabada ka riixayso dilalka halkaasi ka dhaca ee lala beegsado hal doorka kala duwan ee u shaqeynaya Somaliland taabadalkeeda dadka deegaanka ayaa dalbaday inay Somaliland deegaanadaasi banayso isla markaasina dadkaasi ay ayahooda ka tashadaan garaadka guud ee gobolka Sool ayaa isagu waxa uu ku baaqay shiraac ka talil ah waxaanu saaray guddi ka kooban 330 xubnood oo muhiim ah oo hal doora waxaana shirkaasi iyo ku soo beeray beelaha faqashin oo iyagu deegaan ahaan ku abtirsada isla gobolka Sool dadkaasina xeegaan wadaag iyo sidoo kale daris balaa dadkaasi ayaa haatan waxa laga wardhowrayaa mustaqbalka gobolka Sool maanta magaalada Hargeysa waxa ka qabsoomay kulan albaabada ay u xidhan yihiin oo ilaa iyo hadda aan laga helin war sax ah oo ku aadan xogta rasmiga ah ee kulankaasi ayaa u dhaxeeya gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ah mas'uul miisaan culus ku leh gobolkiisa Sool isla markaasina dalka dibadiisa ku maana intii ay xaaladuhu taagnaayeen mas'uulkan ayaa waxa uu biixi kala shirayaa sidii deegaanadaasi ay u noqon lahaayeen deegaan nabdoon isla markaasina dadka deegaanadaasi ay u heli lahaayeen amaan buuxa oo ay ka helaan ciidamada Somaliland oo halkaas ka geystay maalmihii u dambeeyay dilal dad badan ay ku dhinteen si kastaba ha ahaatee xaaladda gobolka Sool ayaa haatan waxay u muuqataa mid degan iyadoo wali dadka deegaanku ay kacsan yihiin Somaliland isku dayayso in xal nabadeed ay ku soo dabaasho si kasta ay u muuqato inta badan waxa ay ku koobnaan doontaa baraha bulshada hadal hayntu laakiin waxaan isdabali doonin xaqiiqada dhulka taala taasi oo markasta dadka deegaanka dantooda ay ku jirto nabadda iyo sidoo kale xasiloonida وباشي waxa suurtagal ah dadka ugu badan ee kicinaya
shaqaaqadani inay ku nool yihiin dalka dibadiisa taasi oo dadka hadlaya intooda badan caruurtoodu ay ku raaxaysanayaan nolol qurux badan oo wadamada qurbaha ka jirta halka dadka reer Laascaanood dadkooda dhalinyarada ah ay farayaan inay xabadda isku dhigaan isla markaasina askari qorisita ay kala hortagaan dhagax taasi oo aan ahayn arin mangal ah intaasi ayaynu walaalayaal ku soo koobaynaa faaladani kooban ee ku saabsan xaaladda gobolka Sool iyo dadyo kala duwan Soomaalidu sida uu ninba cirkiisa uga waraabsaday isla markaasina oo fikirkiisa uga dhiibtay ilaahay xaqan waafaj aniga xaqa ku dhimanaya sababtoo marka dhinto ashhadu an la ilaaha illa allah rasuulullah wala wajinaya dhul bahanta isaaq qaxo leeyahay wajinaa واقول مغلا يورن